muuqaalada naxdinta leh ee qoyskan waa sheekada baraha bulshada qabsatay. Sidaad arkaysaan wejiyadoodu waa kuwa ka duwan dadka caadiga ah. Wiilkani waa curadka reerka, wejigiisu waa caynka. Waxaa hareer jooga 3 haween ah oo la dhashay, waa la mid iyaguna, balse waxaa ka badbaaday 2 gabadh oo keliya. Maxaa sidan ka dhigay wajahdoodu? Waa su'aal ay isweydiinayaan inta badan dadka. Xaaladda dhabta ah ee qoyskan, isbeddelka wejiyadoodu ku yimid, iyo sida ay caan uga dhex noqdeen baraha bulshada, sheekadan ayaan ku eegi doonaa. Muuqaalkana sii faafi. Halkan waa waqooyiga waddanka Muslimka ah ee Indonesia. Waxaan booqan doonaa guriga ay ku nool yihiin qoyska caanka ka noqday baraha bulshada ama barta TikTok-ga. Muuqaalkoodu la yaabka leh ayaa ka dhigay kuwa ka duwan dadka kale, gaar ahaan wejiyadoodu. Waa 5 gabdhood oo lagu daray hal wiil kaasoo lagu magacaabo Anwar. Waa wiilkan idiin muuqda, waana curadka qoyskan. Tani waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah dhacdooyinkii qarsoonaa ee soo shaac baxay dhowaan. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah wiilkan iyo gabadhan waa ay wada dhasheen, se waxay ku kala duwan yihiin muuqaas. Sidee wiilku u noqday sidan? Maxaase ka badbaadiyey gabadhu inay sidani noqoto? Waa su'aal ay isweydiinayaan dadka intooda badan. Qoyskan oo ka kooban 6 carruur ah oo lagu daray aabbe iyo hooyo, waxaa haleelay cudur dhif iyo naadir ah, kaasoo ah mid lagu kala qaado hiddo-sidaha. Cudurkan ayaa la sheegay inuu yahay mid ay ku dhashaan carruurtu, kaasoo wejiga u dhayalroga si ka duwan dadka caadiga ah. Waa mid ka mid ah cudurrada ugu halista badan ee ibnu-aadamka ku dhaca, mana jiro ilaa iyo hadda magac lagu tilmaamay musiibada sidan ka dhigtay gabdhahan quruxda badan. Guud ahaan dunida, 25 qof ayaa uu ku dhacay, kuwaasoo 5 ka mid ah ay ku sugan yihiin waddankan Indonesia. Wiilkan waxaa lagu magacaabaa Anwar, waa curadka qoyska. Waxaa la dhashay 5 gabdhood oo la walaal ah, laakiin 3 ka mid ah ayaa qaba cudurkan oo la dhiban. Waxaa intaa dheer, aabbaha qoyska ama reerkan waa ninkan idiin muuqda. Waa meesha ay ka soo bilaabatay musiibada qoyskan ku dhacday, maadaama uu yahay mid hiddo-sida ah. Wejiyadoodu sida ay isu beddeleen iskuma beddelin qaybaha kale ee jirkooda ah. Iyadoo sidaa ay tahay kuma hayso warwar badan qaabka ay u yaalaan. Waa gabdho iyo wiilal aaminsan qadarta Alle. Waa qoys diinta Islaamka ku barbaaray. Kala duwanaanshaha gabdhahan wada dhashay waxay ka dhigtay kuwa ku baraarugsan awoodda Alle, yaqiinta ay yaqiinsan yihiin. Anwar iyo gabdhaha la dhashay, iyagoo ka faa'iidaysanaya muuqooda ka duwan dadka kale, waxay caan ka noqdeen baraha bulshada, gaar ahaan barta TikTok-ga. Hadda waxaa ku xiran malaayiin qof oo ku soo raacay nooca wejiyadooda gaarka ah iyo fanka ay ku soo bandhigaan barahooda. Sheekadooda cajiibka ayaa baraha bulshada qabsatay markii lagu baahiyey muuqaaladooda. Haddaba, adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar, siina sheer gare.